farmaajo saaxiibkay hadda wada hadlayna inta aad ku soo galin marka waana leeyahay inuu yahay meesha ninka ku haboon hadda yimid waana wada shaqaynaynaa aniga wada shaqayn dhab ah oo wanaagsan oo saaxiibtinimo oo dhow ayaan la yeelanaynaa dowladdaas hadda ayaga dhanka wax kala ka imaan laakiin mana rajaynayo waan la shaqaynaynaa madaxweynaha waxa uu ka hadlay waxa uu la kulmay Sacuudiga waxa uu kala hadlay arrinta dekada Berbera oo arrin aad Soomaali oo dhan u hadal haysta xarun ciidan oo Imaaraadku rabo inuu Berbera ka samaysto waxaan ognahay dekada Boosaaso in Imaaraadku uu rabo inuu idin hormariyo hadda ka hor xitaa balaarinteeda ka hadasheen ma jiraan wax xarumo ciidan oo Imaaraadku idin hadlay in Puntland ka samaystaan dowladda Imaaraadka ahi waxay naga taageertaa tababarka iyo ciidankan badda PMBF-ta wax qarsoonna ma laakiin saldhig military oo Imaaraad leeyahay oo Puntland ka jira ama nagala hadlay ama aanu hadda ka bacdi aan rajaynayna ma u jiro madaxweyne maxay tahay waxaan soo noqnoqda ee mar walba mushaar baa la bixiyay iyo lama bixin horta dowladda Puntland Cabdiwali dowlad dadka u dhibreeyay way u naxariisata oo aan shida badnayn askar hadda si nabad saraakiil hadda siyaasiyiin iska noqdayna waa jiraan oo hadda aan ahayn sarkaalnimo dhaqanka sarkaalnimo aan lahayn hadda dhaqan siyaasi yeeshay laakiin wasaaradda maaliyadda waa ka hadashay ciidanka hadda aad ka hadlayseen oo shidada suubiyay walaalkay horta waxa weeye abaarta ilaah baa keena ilaah baa naga saari kara ilaah baan u baryaynaa ummadda Soomaaliyeed markasta joogaanba inuu abaarta naga dulqaado laakiin de wax kale oo hadda oran karnaa ma jirto waa dadaalo lacagtii musharaxiinta laga qaaday Puntland qayb baa ku soo artay midin soo gaarsiiyeen mada wax lacag oo soo gaartay anahay 150 kun oo musharaxiinta laga qaaday ma garanay lacagtaas anaga kulli waxaan soo gaaraan ku iri 150 kun oo dowladda ku faraaq naga soo gaartay waxa baart ku saabsan 150 kun soo gaartay wax kale naga soo gaaray ma jiraan arrinta amniga bari maxaa kaaga soo baxay inta joogtay inta ku sheegay magaaladan hadda dhowr hadda labo usbuuc ka badan hadda ku nagaanay oo degan joogaa muhiimadda ay noolahay weeye Boosaaso magaalo muhiim weeye caasimada ganacsiga Puntland weeye waana gobolka oo dhan basiisa ma boos kaliya taas lama micnaha inaad rabtid inaad waqtiga oo dhan halka joogtiin taa kaaga hartay waa inaad shaqadan qabatid kadibna shaqada wadid taban horta magaaladani waa magaalo muhiim ah taan joogo xataa marka qaarkood wadanku garow kaliya ma ahan meel kale oo badan baa la tagaya dalka oo lagu shaqeynaayo madaxweynuhu tagayaayo ayaan joogayaayo waxa weeye taban dowladnimada ka bitaay in la socdo oo dadka laga warqabo